kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada nabadjire podcast barnaamij ay BDRC bilowday sanadkan 2025 ujeedada podcastan waa in la falaqeeyo arrimaha quseeyaha bulshada Soomaaliyeed sida nabadda amniga maamul wanaagga horumarka hidaha iyo dhaqanka waxaan isku xireynaa xogta cilmi baarista iyo mowduucyada muhiimka ah ee taabanaya bulshada waxaan martigelinaynaa khuburo hogaamiyayaal aqoon-yahano suxufiyiin iyo dadka saameynta leh si aan gacan uga geysano fahamka xaaladaha jira iyo wanaajinta bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto magacaygu waa Cabdinaasir Yuusuf waxaan ahay daadiyaha xalqada koowaad ee barnaamijka nabadjire podcast oo ku saabsan fahamka kooxda Daacish howlgalka militariga hadda ka socda Puntland iyo saameyntiisa waxaa marti inoogu Cabdisaaq Ciise Xuseen Khaatumi taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka Puntland cabdinaasir waa mahadsantahay adiga tiimkaaga BDRC ba aad baan maartay ugu faraxsanahay inaad dangore ugu soo booqataan meeshaan iska harsadaan odaya waxaan ahay ayaantan iska nasanayay su-aasha ay weydiisay oo ku saabsan kooxdan Daacish ama ISIS labada magac wadata waxay bilaabatay jiritaankooda inay ka jiraan Puntland dhexdeeda 2015 si yar bayna ku bilowdeen koox ka carootay kooxda kale argagixisada oo al-shabaab ka baxday bay ahaayeen kadibna ku fekeray groupkan oo samaysmay markaa iyaguna caalamka jiray inay kula daartaan maadaama kooxdan qoladii hore ay ku jireen ay ahayd Daacish aan iraahdo qolada la yiraahdo al-Qaa'ida ay ahayd koox si gamaaraysa ama si ka sii baxaysa saaxadda waxay door bideen inay qolada tano markaa iyagu cusbaa ay ku biiraan marka koox ka baxday waxay ahaayeen qoladii al-shabaab bay ka baxeen kadibna waxay u baxeen oo u baxsadeen iyagoo ka cararaya kooxdii ay ka tageen inay dhibaatayso calmiskaad iyaga oo markaa gabaad ka dhiganayay beel halkaa degta oo markaa iyagu dhib weyn ba u arkayn oo iska moodayay nin oday oo ka soo cararay laakiin dee magaca uu huwan yahay marka la eego dee ciddii taqaanay wuxuu soo waday way qiyaasi kartay marka nimankaas xilligaasay samaysmeen marba heer bay ahayd mar magac ahaan dad u jiray bay ahaayeenoo dee Daacishta caalamku ay aqoonsatay inay jiraan oo Soomaaliya ka jiraan runtii anagu markaa aan shaqaynaynay dadka qaar markaan uga sheekayno way iska dhayalsan jireen waxaan oran jiray markaa anigu markaan meelaha la isugu tago oo argixisada laga hadlayo markaan tagno waxaan oran jirnay war qolada tan waxa sugaysaan markay murqaystaan way hadda intay fudud yihiin wax looga qaban waay marka si kastaba ha ahaatee xilligii ay habboonayd ama ay fududayd in wax laga qabto waxaa moodaa inaan waxba laga qaban mar waxaa jirtay ay iyagu ka dhuuman jireen qoladii ay ka soo baxsadeen oo marba qolo ay hoos geli jireen si ay ugu dhuuntaan ama qabiil ha hoos galaan ama burcad iyo wax la mid ah ha hoos galaan marba si bay ku badbaadi jireen laakiin after some time markii la gaaray 2017 waxaa soo gaaray dad ajaaniba ayagiibaa wuxuun dhaqaalaha sameeyey ama dhaqaala soo gaaray oo dad qortay waa xilliyadaas marka 16 iyo 17 ay isku dayeen inay ismuujiyaan oo meelo ay wax ka dhaqaajiyaan Puntland kamid ah si ay aqoonsi uga helaan nimanka guud ee caalamka jooga oo Daacish loo yaqaano mar bay ahayd nimankan waxay bilowdeen inay soo xoog jira noqdaan waxay bilowdeen ilaa 2018 bay xoog heleen oo waxay heleen dad ay ka shaqaaleysteen localka iyo dad uga yimi oo iyagu aqoon xirfado ku soo siyaadiyey iyo dagaalyahanimo iyo waxyaalahan kale oo argixisadu mekanism isticmaasho ku soo siyaadiyey baa ku soo biiray taasina waxay soo jiidatay inay qoladii kaleeto ay ka soo tageen ay challenge u arkaan oo ay ugu tageen meeshoodii oo dagaal ku qaadeen
runtii wax weyn bay u geysteen dhulkii ay haysteen inta badan way ka qabsadeen daacish baa laga qabsaday dhulkii ay haysteen waaga hore maadaama ay u arkeen iyagu labada argagixiso labadu de waxay isku haystaan resourcekii puntland bay isku haystaan waxay ganacsigii dhulka ka jiray bay extortion lacagta kaga qaadan oo baadaan markay u arkeen qolada tani inay iyana dhinacooda ka guranayso waxay istuseen inay ka dhacsadaan ma aha inay ina difaacayaan inay dhahaan annaga keliya baa ka muuqanaynaho midda kale waxa ay gadaan propagandada haddii qoladani wax samayso tanna waxay ku khasbantahay iyana wixii kale samayso oo dadkii dhibaatada dadka loo geysanayay baa lagu tartamayaa jiritaanka sidaas oo kale marka waxa weeye xooggooda ay isku dayaan inay dowladda haweystaan ilaa muddo 3 sano ah uu soo kordhayay step by step kadib markii argagixisadii caalamka joogtay oo daacish ahayd laga adkaaday ay ku feelgaroobeen inay si unit ahaana u jiraan waxay ku khasbanaadeen inay ku soo qulqulaan buuraha kan calmiskaada ay u arkeen meel safe haven ah iyagoo access u helaya ama inay soo maraan badda cas iyagoo ka soo gudbaya yemen oo iyadoo laftigeedu dee markaan aan dowladda xoogli ka jirin waxay noqotay meel ay ka soo gudbi karaan oo kala soo gudbi karaan agabkii hubkoodii cilmigii wax kasta xataa waxay isku dayaan inay dad khubra soo kireystaan marka anugu muddadanba waxa weeye runtii dowladda anuda toos looma shaqeeyo dowladooda in dowladda ka tirsan maahay laakiin xogaha intaan tabarteeda waxaan isu dayi jiray inaan gudbiyo iraado war halkaa khatar baa ka soo foole waan u malaynaya inaan ka dhawaajiyo war halkaa qalab casri ay keensanay waxaa ka mid ah droniska waxaan ka digi jiray oo ilaa dhowaan aan dadku aysan rumaysan inay wax jira yihiin ilaa la arkay marka nimankaas way jiraan dee waxa runtii dadku aad u barteen dagaalkan hadda markuu puntland qarxay baa runta dadku ogaadeen waxyaalo badan oo runtii hadda la ogeyn daca waa jiraan oo u baahan in lagu sii dhawaado meelo badan baa taabatay waxaan rabaa inaan bal horta waxa iiga warantaa arrinka baycada ay la galeen qoladii Syria iyo ka jidhay iyo Iraq ma waxay baycada la galeen mar dambe oo ay Puntland iyagu iska abaabuleen oo magaca ay iskood u sheegteen mase markii horeba wax ku bilaabeen oo baycada iyo heshiiska ay isla galeen baycada sida anagu aragnay waxay la galeen bilo kadib ilaa 6 bilood kadib markay iyagu ka baxayeen qoladan shabaab ilaa 7 qof bay ahaayeen markay ilaa dhowr iyo 20 gaareen baanu aragnay kilib ay duubeen oo ay soo geliyeen barahooda oo ay baycada iyo wax la mid ah sameynayaan marka isbuutin waxay ahayd 2016 bay galeen 15 bayna ka baxeen marka 16 bay sameeyeen baycada waxay ku sheegeen waxaa jirtaa mar iyo 2 iyo 3 in shabaabka iyo daacish isku dhaceen oo isu gacan qaadeen waxaa kaloo jirta in dowladdu iyo daacish iyadana sidoo kale dhowr jeer bal waxaa nooga warantaa isku dayadii ka horreeyey sanadihii hore dhacay ama labada argixisada ah ka dhex dhacay amaba daacishta iyo dowladda ka dhex dhacay bal taariikhda iyadana wax yar noo dul istaag dagaal xoogan oo muddo soconaya oo kan ka horreeyey puntland iyo daacish ma dhex marin waxaa jiray dagaalkii dhex maray dowladda iyo daacish qandala 2016 magaalada qandala ay qabsadeen ugama dan lahayn inay haystaan waxay uga dan lahayn propagando iyo inay isbaraan daacishta kale oo ismuujin bay ahayd wayna sameeyeen maadaama qandala magaalo qadiim oo la yaqaan tahay way sameeyeen ku guuleysay inay qabsadaan laakiin hadee iyagu ogaayeen inaysan sii haysan karin wayna ka baxsadeen mana ay lahayn capacity ay ku soo haystaan laakiin maadaama qandala ay meel remote tahay janis bay u arkeen inay maalmo haystaan wayna sameeyeen kadibna dowladdu way ka saartay laakiin waxa anigu aanan jeclaysan in laga haro waaga waayo dee ma aysan lahayn awoodda hadda ay leeyihiin iyo xiriirka hadda ay leeyihiin awood dhaqaale mid ciidan mid farsamo hadda ay leeyihiin waagaas midna ma lahayn marka dee marka ay buuraha galeen waa la iskaga haray waa la iska daayay iyo gudahooda marka isku dhacyada waxaan anagu wax ku haynaa inay shabaabku marka hore
dabcan intay qoladan tabaryar yihiin inay kaga takhalusaan waagi hore ka tabaroonaadeen laakiin markii dambe lagu biyo keenay bal taariikhdaasna wax yar noo dul istaag dagaalkoodu ma yarayn ilaa iyo waagay 7 qof ahaayeen dagaalka doonista shabaabku way raadin jireen inay laayaan oo qabtaan bay rabeen uma suurtagelin oo waataan ku lahaa dee marna qabiil bay ka dhex galeen marna maxay tahay qolyo la yidhaahdo burcadbadeed iyo dhulkaasi way ka dhunteen aduu dad yaroo dee wax la soo heli karo ma ahayn markii ay xoogeysteen oo yare dagaalkii qandale kadib shabaabku way soo dooneen waxay rabeen sidoo kale inay tirtiraan uma ay suurtagelin inay dhammaystiraan laakiin jug weyn bay u geysteen dhulkii ay haysteen 7% waa ka qabsadeen waxay ku dhunteen dhul fog oo runtii shabaabku ay u soo geli waayeen iyaga oo meelo kale dhulka galay oo xaafado ama hadduu daran beelihii dib ugu noqday oo shelter ka dhigtay muddadaas dhulkii ay dahabka ku qodan jireen dhulkii ay maamuli jireen waxa haystay muddo fara badan ilaa 2017 dhammaadkeedii ilaa waxaan oran karaa 2021 shabaab waa joogeen buuraha weliba way ku xoogeysteen yani waxay waagi hore dhinac keliya ka deganaan jireen buuraheena laba dhinacba iyagaa iyagaa ku xoogganaa kadib waxaa dhacday in ay baaba'day daacishtii caalamka inay yacnaha jiritaan beeshay laga qabsaday dhulka haysan jireen oo ay ku soo burbureen oo iyagoo manaha soo galay puntland usoo carareen usoo haajiray wafis baa soo galay dad hirar badan oo daacisha oo ajnabi baa soo galay daacish waxay heshay dhaqaale daacish waxay qoteen dahab resourcekooda si gaaran kaaga sheekeyn doonaa waa badan yahay laakiin awood dhaqaaley heleen awood ciidan bay heleen khibrad ciidan bay heleen kadibna waxay awood u yeesheen inay la dagaalamaan shabaab oo ka saaraan aaggii dhulkii dhan ka qabsadaan dhowr jeer bay isku dayeen inay dib ugu soo noqdaan 2022 bay bilaabeen dagaalkooda bilaabeen 23 waa ka sifayeen maya waa ka sifay laakiin dagaalkoodu mudduu socday oo gorilla ahaan bay nimankan isugu dayi jireen markay arkeen nimankan aan la hoolin karin waa ka huleeleen marka hadda waxaan oran karnaa waxaa dhinacaas kalaba hadda gacan ku gabada oo ay haansanayeen inay tagaan oo dagaalkan hadda dowladda la galeen baa soo dhex galay qorshahoodu wuxuu ahaa inay dhinaca laba wareegaanba waxaan rabaa agaasime inaad bal noo dul istaagtid hal mar ah nimankan iyo nimankan kale oo shabaabka labaduba puntland waxay ka joogaan gobolka bari maxaa ku gaara maxay gobolkaas ku doorteen actually wax gaar ku ah dadka iyo deegaanka ma jiraan waa dhulkaas u samaysan yahay wey dhulkan kale waa dhul bannaan marka waa aragtay wixii ka dhacay markay suuji iyo garmaal iyo yimaadeen iyo garacad iyo dee sidii loo carcayrsanayay oo cid walba usoo sheegaysay tan waa dhulka dee jiqda oo buuraha oo wixii galaa dee ciyaariga loogama dhammaan karo waxa weeyaan marka dhulka wuxuu yahay dhul gabaad ah gabaadkaas bay u joogaan waxaan ku hayay xogta shabaab ninkii la dilay ee godane inuu ku dardaarmay buuraha gala waa buuraheenna kan calmadow marka waxay ku doorteen geographically dhulku si u samaysan yahay baa sababtay inay galaan maaha dadkuna uma yeeran mana rabaan laakiin dee meesha ayaa sababtay meel gabaada ah oo lagu dhuuman karaa biyo leh oo dhuumashan leh waxaan rabaa bal inaad iyaduna aad dul istaagto dowladda puntland dadku waxay isweydiinayaan maxay hadda ula dirirtay hadda ka hor maxay ula diriri weyday marka haddeer ma waxaa jira culays iyo khataro ama qorshayaal halis ah oo ay maleegayeen cabdinaasarow puntland inay haddeer la dirirto waa ku khasbanaatay waxa weeye haddaan lala diririn haddee iyaga inala diriri lahaa marka way ku saxsanayd dowladdu inay la dirirto laakiin wax ka sii fiicnayd inay inta ka hor la dirirto qorshayaashooda waxaa ka mid ahayd
inay qabsadaan Boosaaso oo hadda Ramadaankii ina dhaafay bay qorshahooda ahayd inay ka faraxashaan magaalada Boosaaso taas qorshahooda ku jirtay waa badnaayeen qorshayaashooda marka dowladdu dee waxa laga yaabaa inay way ogeyd oo dowladdu ma ogeyn ma oran karno dowladdu waa xogta way heshaa waa dowlad laakiin dee inay kolley wuxuun isla gaadaysay kaleeto oo ay qorshayaal kala ahayd laakiin aniga aragtideeda waxay ahayd inay 2 sano ka hor inay weerarto intaysan sidaan oo dhan u xoogaysan intaysan qalabkan casriga keensan droniskan maxaa la dhahaa hoobiyaha kan maxaa la dhahaa yacni raggan khibradda leh oo saan u dagaalamaya yacni imkaanismkan caafimaadka waxaan oo dhan lacagta sida u fara badan waxaan oo dhan intaysan isa soo gaarin baa horta in macallin goorma hadgeed in la beero xalay 10 sano ka hor goorma ku xigtaa hadda marka aniga aragtideeda waxay ahayd markii 7 ahaayeen in si la soo raadso laga qabto marka ku xigtana waxay ahayd markii qandala ay weerareen inaan laga harin hadda marka ku xigtana waxay noqotay markaynu hadda aragnay inay inagiiba inoo soo dhaaranayaan waa ku khasbananay waa lagu khasbanaa agaasin bal waxaad iyada noo dul istaagtaa dadka dee shacabka ahi iyagu xog badan ma hayaan waxa aad loo jeclaan lahaa in la ogaado dadkan qiyaasaha idinku xoogaalnimada aad haysaan tiradooda aan dhahno mar maalintii lala diriireeyey tiradooda intay ahayd iyo kolle xogo badan oo wadamada ay ka kala yimaadeen waa soo baxday laakiin si ugu kala badnaayeen oo muxuu ahaa wadamadaas food soldierska ama ciidamada yaa ugu badnaa wadamo ajaanibtan ka hadlayaa su-aasha saddexaadna waxay tahay maxay u doorteen ajnabiga oo soomaalida ugu yadhax bismillah niyo warta su-aasha tiradooda imisa ahayd waa su-aal inagu dadaynu intaan u tagnay ciidankoodana rigaynay oo tirinay ma ahan waa nimanka argixisada ah oo buuraha ku kala jira laakiin dee inagu xogo un baynu helnaa xogahaasna beenna way noqon karaan runna way noqon karaan laakiin xogta sida inagu soo gaaraysay dagaalku intuusan dhicin nimankaas 1,000 iyo 100 waa ahaayeen marka la isku daro kulligood waxaa ka mid a nimanka qaybo ciidana oo aan waxtar ahayn tirana badan kuwaasoo ah dad ay soo afduubtaan oo tahriibayaal ah oo masaakiin ah oo badda markay fuulaan ay afduub keensadaan tiro badan oo dadkaas ah baa jooga oo aan dad aan tayo dagaal lahayn laakiin dee markaa aragtideed madaxa ka tiri dad badan noqonaya tirada ugu yar oo halkaa joogta markii dadka qayb ahaan loo kala qaybiyo Soomaalida ahayd tirada ugu yar Soomaalida ahayd tirada ugu badanna waa dadka dirka cad oo casaanka oo dee shiyaan cid kasta ku jirta lama oran karo waxa ku jiraya Latin America laga helayaa waxa laga helayaa Arab waxa laga helayaa dad Yurub u dhashay asala waxa laga helayaa Persian waxa laga helayaa dad Hindi ah waxa yacni lama oran karo waa dadka dubka cas baan miray moogtahay bay u badnaayeen dadkaas marka laftigooda siyaado kala duwan ku yimi qaar waa dadka dee argagixisada soo dagaalamay oo meelaha ka soo jabay oo soo cararay oo adduunkuna raadinayay oo madaxda ah qaar waa dadka dee influence gariyo sida dad Soomaalideennaba dee maskaxda looga xaday wax lagu soo shubay oo lacag baa la siinaya la yiri oo Morocco iyo dhulka iyo iyagana ka soo hira markay yimaadeenna dee meel qaarkood waa iska yaaceen markay arkay xaalad wixii loo sheegay jihaadkii iyo qaarkood lacagtii loo sheegay iyo wixii arki waayeen waxa ka mid ah dad caloosho istaayl oo meesha tandaha baa laga guraa oo experts baa jira la soo kireysto oo godadka iyo waxa iyo indheer baa laga helaya marka meesha tan maadaama ay muddo safe haven ahayd lacag badanna ay helayeen waxyaalo badan bay ku fikireen maaragtay ciidamadu waxay soo bandhigeen isbitaallo maca MRI ga yaalaan waxyaalo badan oo la arkin baa jira cagafyaa jira adhoona meeshay geeyeen dhulka lagu qodo baa jiray meeshay ku qariyeen kolleyba iyagana waa la soo heli doonaa marka meeshan wax horumar bay wadaan isbitaalada dhulka hoostiisa baa la sameynaya haddaan laga gaarin oo la waday oo waaweyn dhulka hoostiisa underground xataa duqeynta laga rabo inaysan waxba ka qaban marka tirada ugu badani waxay ahayd dadkaas saan cadda ama carab iyo wixii la halmaala ah waxa ku xigtay nimanka Ethiopian u dhashay Oromada oo inta badan 95% afduub lagu keenay iyo dad Soomaaliya oo aan aad tiro badnayn waxay Soomaalida uga carareen su'aashaas waa su'aal runtii aad cajiib u ah in la fahmo Soomaalida iyagu kama cararin Soomaalida ayaa ka carartay aan ku raahdo
markii ugu horreysay wixii meesha bilaabay Soomaaliya baa ahayn carabi kuma jirin muddo badan buu isku dayay ninka meesha haystaa inuu qabiilka intuu shiriyo ku qanciyo inay wiilashooda keenaan iyaguna lacag badan helaan dadka Soomaalidu dee argagixis hadda uguma horeyso inaga shabaab ayna la joogi jiray way ogyihiin wixii ka dhacay sanaag marka iyagu dadku niyadda ku haya baa in yar oo criminalisa oo dee dadka aan adduunka u kala socnayn oo meeshii belo ka jirta uun jecel maahane dadkii wax garanayay lafahooda uga carareen marka dee dadka Puntland dee waa og tahay iyo argagixiso say kala yihiin taasaa sababtay marka dadka Puntland inaysan jeclayn argagixisada marka waxay hore uga xoogaysan waayeen ilaa ajnabigu yimaadeen Soomaalidu ma aha dad daneynaya in argagixiso noqdaan waliba reer Puntland bal hadda dagaalka iyo inta aynu ka sheegi karno wax walba ma khasamaha inaynu sheegnaa waanu imaanaynaa laakiin waxaan rabay inaan bal wax kaa weydiiyo arrintan ah inay ajaanib u badan yihiin waxay leedahay baa la yidhi faa'iido iyo faa'iido darro labadaba way u lahayd nimanka iyaga ah maxaad nooga sheegi kartaa faa'iido way u lahayd nimankan horta waa niman dagaalyahanaa oo xilligii dagaalka iyaga shabaab dhex marayay waxa ay meesha ka saaray nimanka barakiciye waa nimanka ajnabiga waa niman soo jabay oo dagaalyahana oo ay ka go'an tahay waa niman aan nafar rabinba waa dad nafar waa markii halka ma yimaadeen loo arrimood ma tahay taas oo keenaysa qofkan inuu adkaado waa faa'iido u tahay marka waxay kaloo ugu tahay khibrad way keeneen nimankan waxay faa'iidooyinka ugu weyn ay u keentay waxa weeye maaha dad dalku saacidayo oo dalka u dhashay hadda markii dagaalku dhacay meel ay biyo ka soo qaatan ma yaqaana raashin ma haystaan wax oran kara aabahooda waka mana qarsoomi karana waa ninka cado qof walba halkaas soo dadkii wadada maraya hadda shacabku qabanaya oo iska caadiya oo la hubinayo ilaa la hubiyo lama sii daayo qof cas laakiin ninka madow meeshu doon ka bixi kara Soomaaliga waa sidaa way waa mahadsantahay Khatumi bal waxaad hadda iftiimin noogu samaysaa muddo haddeer 2 bilood 3 bilood dagaalku socdaa maxay kula tahay nimankaas boqolkiiba maxaad dhihi kartaa ba awoodoodii iyo haddii alla ku royo joogistoodii dhulka boqolkiiba imise baa gacantooda ku haray dhulkan calmiskaad horta waa dhul ballaaran waana dhul complex oo hawl badan oo meel kasta askari cag dhigi karo maaha dhul qarsoon bay leeyihiin oo iyagoo wax badan ba ku jirin xataa aadan arki karin laakiin waaqiciga dhabtaa markaan eegno nimankan way jabeen wayna jabayaan waxaana jabinaya nimankan haddii dowladdu waxay samaysay cunaqabatayn reer miyigii dadkii ay sasabteenna way ogaadeen oo waa ka camin baxeen oo waxba siin mayaan baahi baa dilaysa iyo niyad jab ani waxaan aaminsanahay haddii lagu sii hayo waxaa waqti bay qaadanaysaa laakiin haddii lagu sii hayo inay inta badan dadkan ajnabiga ah huleelayaan oo cararayaan hadday meel ka baxaan helaan ama isdhiibayaan waayo iyagoo aan xabad lagu dhufan ama lasoo dul istaagin gabayay ku jiraan baa waxa weeye couragekii iyo niyaddii ahayeen waa dhimatay dad saboortigii ay helayeen iyo lacagtii iska soo duulaysay ay baata ku helayaan waa dhammaatay raashinkii iyo xoolihii ay iska iibsanayeen waa dhammaadeen biyahoodii iyo awrtoodii baa hadda maanta sidaasan ciidanku la wareegan oo ay sheegayeen marka waxaa helaysa cunaqabatayn rabaaniya baa qabsanaysa nin dalka u dhashay maahan burahaas oo isilad ku noqonaya marka ma u shaqaynayso iyagoo jooga oo aan xooggoodii kala bar ama intii badneed joogto bay saas ku jabsan yihiin saas oran karo aan soo dhaadhacno Khatumi bal inaan nimankan iyo nimankii ay meesha ugu horreeyay shabaab aan wax ka baranno maxay ku kala duwan yihiin aan dhahno awoodooda ciidan aan dhahno macaamilka dadka ay la joogaan aan dhahno aragtida fogo ay qabaan maxay ku kala duwan yihiin many major differences oo ku muuqan kara maxay yihiin waa laba argagixiso laakiin waxaa la yidhi cadaabuhu waa kala daran yihiin waxay ku kala duwan yihiin wax badan iyadoo labaduba ay laba argagixisan yihiinoo midna aan bar khayra lagu arag bay kala shar badan yihiin taasaan oran karnaa waxaa shar badan kuwa hadda aan la dirirayno daacish
waayo shabaabku waa aragtay waxbay dabakhaan oo isu ekaysiiyaan diin bay dabakhaan laakiin dee dadka lagu gaadayo maxkamadaan samaynay xagga cadaalad baan samaynay meelaha ay iyagu ka taliyaan dadka way jirtaa dadku hoos bay wax walba dee u jiraan oo hadda arki lahayd dadka waa la bahdilaa laakiin sida ay dadka tusaan labis diineed bay leeyihiin kuwan waxa shaqo kuma laha diinba shaqo kuma laha maba ku habsaamaanba waxaas nimankan ma soomaan ma salaadaan laba ma tahay taas waxa u dheer dhaqankooda ciqaabtooda dadka ku ciqaabaan labadaba dadka waa dilaan oo ciqaabtooda dilbaa ugu weyn laakiin shabaab waa aragtay dee wax dilaya wax biraynaya iyo waa aragtay qof nafta kaa gooya wax dhan qofka isoo taagan baa intisaa loo jeexo wadnihiisa lala soo baxaya ama dab baa lagu shidaya waa la kulaalaya haddaa madaxweynaha walaalkiis tahay shabaab inaadan waxba kacisa kuweega waxa laga yaabaa iyaga oo dad istusaya cadaalad inay yihiin inay ku sii daayaan kuwan waxaasba maba dabaqaanba marka saas way dhacday nin askariga ciidan ka tirsan naagtiisa oo baadiye joogta intii la tagay in la birayo madax laga gooyo way dhacday marka saasay labadu ay u kala brutalsan yihiin magarata dhanka waxaa ka hortaa capabilityga muxuu ahaa iyo capacitygooda dhanka muxuu ahaa dagaalka iyo militariga iyo khibradooda iyo sophisticationka dhanka technologyga iyo ka warantaa marka laga eego habkii hore oo dee soomaalida labadaba marka loo eego waa isku mid laakiin nimankan ku soo biiray oo caalamka ka kala yimid caalamku xadaarad baa la isu keenaya khibrad baa la isu keenaya runtii nimankan ajnabiga yimid khibrad badan bay ku soo biiriyeen cilmiya waa aragtay dee labadaba way loo dagaalanay isku mid maaha waxay qalabka isticmaalayaan kuwa iyo kuwaan isticmaalayaan marka kuwan sophisticationka waxaa u keenay ajaanib waxaana waxyaabaha isleedahay hadda soomaalida ama inta inaga aynu naqaanay ama lagu arko meelaha lagu diriro in ka badan bay haystaan ama soo bandhigeen oo awooda ama horumar dhinacaasa maxaad nooga sheegay ama qalab ha ahaato ama aqoon ha ahaato ama muxuu ahaa technology ha ahaato maxaad ka sheegi kartaa runtii ma oran karo awood ciidankeenna ay ka awood badan yihiin ama ka qalab fiican yihiin bay haystaan ma oran karno laakiin markaynu labadooda isbarbar dhigno waxa casirsan daacish waayo caalamkiiba iyagu toos hadda ugu xiran yihiin niman kale waa niman loo kala iyagu waxay ku xiran yihiin xuutiiska waxay ku xiran yihiin iiraan yacni waxa laga yaabaa in waddamo dee iska sharwadayaa leh inay waxuun ka caawiyaan laakiin waxa soo gaaraa ma aha innaga wax ciidankeena niyad jebin karaan ama ay ku impress garayn karaan ma ahan waad aragtay diyaaradaha xukunkaa duulduulaya iyagana dee qalab baa loo keenayo jaamgaraynaya wixii kaleeto oo aragtay waxay samaystaan marka isbitaallo yacnaa markaa fiiriso yacnaa waxay marka hore samaysteen wax badan bay haysteen oo aysan shabaab haysan laakiin waxa hadda waa is ceyrsadeen ma oran karaa waa is ceyrsadeen wax dadku waxay isweydiinayaan dhanka lacag ururinta localka ah oo lacagaha waxaa la yidhahda iyaga qaybna banaanka uga timaada qaybna gudaha bal aynu eegno midda gudaha uga timaada dadka waxay dadka caadiga ay ka sheekeynayaan inay aad u kala duwan yihiin oo qaabka ay lacagta u qaadaan iyo lacagtay qaadaan labaduba inay shabaab muqoladan daacishka ay aad ugu fog tahay oo xagjir dhinacaas ay ku tahay lacagta ay qaadayaanna ay fool caqli tahay ama maangal aan ahayn baltaa ka hor runta cabdinasrow way jirtay laakiin hadda waxaan u maleynayaa waxba sidii ma aha marka waxaa jirtay intaan dowladdu bilaabin inay nimankan weerarto bisinesyo badan oo xirnaa oo markii lagu ijbaaray aan sanadkiiba soo gelin la iskaba xiray ilaa 3 business baan garanaya oo iskaba xirayba oo kaba cararay dalka eeg marka lagu yiraahdo adiga oo dukaan yar haysto oo 20